waxaan u wanaagsan daawadayaal meel walba ay joogtaan waa mar kale iyo heesihii reaction-ka fanaanada la magac baxday safiyo maxamed oo kamid ah da'yartii dhawaanahanba baraha bulshada qabsatay isla mar ahaantaana kamid ahayd fanaaniintii ka soo baxay Muqdisho Got Talent oo guud ahaanba magaalada Muqdisho ka noqotay xidigta la holin la yahay ayaa hees jawaaba oo ka tarjumaysay heestii maalinka ciidaha uu qaaday fanaanka reer Hargeysa ee Amiin Yare waxa ay jawaab ka soo saartay heesta la durbadiina waxa heesta ku faaftay baraha bulshada fanaanadan ayaa waxa ay si kalgacelin xariis ku jirta ay ugu jawaabtay heesta ahaydii furbuuga naxariista waxa ayna ku tilmaantay in markaasi iyaduna ay baadi goobayso in muddo ah ay baafinaysay daawade haddii ay noqoto heesaha talantaali isu jawaabid iyo kalgacal iyo sidoo kale iyo isu soo dhawaasho waxa dib ay noo xasuusinayaan heesahan oo kale heesihii qaaraamiga ee barsamaadkii ee fanaaniinta ka tarjumayay arrimaha jacaylka ay hawada isu marsiin jireen balse hadda waa ay ka duwan tahay oo aaladihii waa ay horumareen tiknoolajiyadana waa ay tallaabsatay gabadha safiyo maxamed waxa ay leedahay ma anigaan ku baabaafin oo aniga maan ku boholiyoobin hore waxa uu yiri Amiin Yare yaa haddii aanan ku baaqan oo hadalkayga uu sida ahayn heesaan caadi ahayn oo la wada ilmeeyay baa ahayd nin walbana sidoo doono ayuu u dhigay balse xaalku waa ka duwan yahay maanta oo waxa ay leedahay safiya ma aanan ku boholiyoobin oo ku babaafino oo bukaan iga dhigan oo waxaad igu beertay hadee aanan baadi gooweyn bidhaantaada marka xaalku markuu meeshaasi maraya mucaashaqiinta dhammaan baa madax wada ruuxayo waxay taagan yihiin heestu waxa ay noqonaysaa silsiladii maandeeq oo isla mar ahaantan waxa laga yaabaa in fanaaniin kale ay dib ugu soo biiraan ayadoo ay hore ay gabadh kale u soo qaaday heestan mid la mid ah oo ayadana jawaab ahayd heestan ayaa waxa ay baaqi ku tahay Amiin Yare iyadoona la sugaya in fanaaniin rag ah ay ku soo biiraan silsiladan isla mar ahaantan ay soo jawaab celiyaan safiyo maxamed hadaba daawade adiga sidee kula muuqataa maadaama aad tahay dadka daneeya arrimaha mucaashaqiinta iyo heesaha la isu jawaabaya miyay kula muuqataa in dhanka fanka ee da'yarta iminka jirta ay horumar ballaaran ay sameynayaan isla mar ahaantan ay u talaabayaan waxyaabo ku dayasho mudan daawada halkan hadaad nala soo gaadhay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka yagan fadlan hadaad nagu cusub tahay na soo follow garee ama subscribe na si muuqaalkan share garee meel fog u gaaro asxaabtaadana ku share garee like tii comment-gana naga iloobin waa inoo muhiim